السلام عليكم kusoo dhawaada videoga koowaad amar intaan videoga bilaabno waxaan rabaa inaan tusaamar fikradan meesha ka keenay waxaan ka keenay dali aan geliyay hadaan fiirsanayn videoga aan ka sameeyay dali korkaan soo dhigi doona ka fiirsad insha Allah laakiin dali aan ku qoray inay to low poly style oo meel waxaan rabay oo lake view iyo waxaan rabay geedo moogtahay kadib dali aan ku qoray sawiraanta badan ay siisay marka dhowr xabaan kala baxay marka siiba kan saddexdan saad ku helana waa kan 1 2 iyo 3 marka koowaad waxaan ka bilaabanaa meeshaan ku imaanayna waxaan collectionka magac ka bedelinaa waxaan bixinaynaa dhul marka collectionkii dhulku bixinay waxaan qabanaynaa sanadeena wax ka soo gelinaynaa waxaan soo gelinaa cube kale cube-kan hamar ka fiirin dhinacan oo yadan ka fiirinaynaa hamar aan soo ku istaagnay meeshaan taaba kadib control space marka taabto control space uu ku weynina meeshaan dhan waxa geesan ka bixinaa hadaan furno kan dhinacan cube-keen inta ka arkana intuu dhirirkiisa yahay dhirirkiisa kan waxa rabaa inuu noqdo kan ugu horeey moogtahay dhulka kuwaad waxa rabaa inuu noqdo dhulkan kore arabnaa inuu noqdo dhirirkiisa waxaan ka dhigaa 1 mitir aan ka dhigaa ziga way kan ziga 1 mitir aan ka dhigay labadan kalena ina mid qabtaan ku qoraa 20 kan kalena 20 soo waa 20 mitir by 20 mitir inkasta aan ugu dhaashay isticmaalina shift d laakiin hadda waxaan rabnaa inaan mid kasta si gooni u jarno moogtahay soo marka waxa fiican inaan sameeyno shift d kadibna waxaan taabanaynaa z hadda korkaas fiirsiin zida bisa dhaqaaqayso kadibna minus halaan taabanaynaa soo hal xabo hoos u dejina kan haddana shift d kalaan dhaheynaa waxaan rabnaa inaan sameeyno dhulkan weyn soo waxaan leeyahay shift d z haddana minus 3 soo marka 3 kan hoos halkan imaanaynaa waxaan ka dhigaynaa 5 mitir marka fiirino dhinacan x-ray-ga ama wireframe-ka hadda isoo siyaalaan aan ka baxno x-ray-ga iyo wireframe-ka kadibna markaan ka baxno hadda waxaan rabnaa inaan intaas jarnaa rabnaa oon aan sameeyno biyaha waxay la tahay dhulkan inuu wax yar weyn yahay soo waxaan ka dhigaynaa 4 mitir way la weynaaday kadibna kor aan u qaadaynaa haddaa fiirsay meeshaan halkii xabaa reegtiin waa 1 mitir moogtahay soo kan waxay u egtahay inuu kala bar yahay koraan u qaadayna hal mar minus 3.5 soo wax yar u kor u qaada hadda waxay maalinaa meeshaan kore waxaan dhahaynaa add kadibna cube-kan ana mar meeshaan rabnaan geyno bas waan keenay cube-ka hadda markaan keenay meeshaan rabno camal kadib aan dheereynaynaa dhinaca y-gan u jiidanaa hadda isleedahay si ku ogaa karaa kan y maa jiidaa ama x maa jiidaa waxaa fiirisaa meeshaan kore jihada rabnaa u jiidno waa y ama waxaa fiiri kartaa calaamadan yar cagaarka iyadana waa y kanne dhulka haddaa fiirsida xataana waa y waa ya-da ma fahanti soo ya-dana qabanaynaa waxaan ka dhigaynaa 20 mitir sababta 20 ugu dhigayna waxay tahay dhulka dhan arma inuu jiro moogtahay dhulka laftigiisa 20 waxaan ka dhigi karnaa 25 ka dhigi karnaa balicisna waxaan ka dhigi karnaa kan waa x-ka 3 mitir bar dhinaca zigan waxaa ka dhigi karnaa 4 mitir soo hoos aan u dhigno wax yar haddaa u baahan tahay mataqaanaa meesha webiga inuu noqonin meel sidan u dheer u baahan tahay inuu sidan u baxo haddana sidan u soo galo sidan u leexdo mataqaanaa waxaa samayn kartaa inaa taabatid bahalkan ay imaan kartaa edit mode kadibna control r ama halkan aad taaban kartaa kadibna click aa leedahay click mid kale haddana click 3 mar soo maraan ka baxo edge-kan ay imaana kadibna inaan kan taabtaan anoo haayo alt aan taabanaa meeshaas kore sababta wuxuu noo taabanaa bahalka oo dhan marka anaa mar wax yar leexino kana sidoo kale waxaan taabanaynaa alt click kadibna intaan waxaan soo jiidaynaa kana alt click halkaas aan jiidaynaa soo haddaan ka fiirna hamar dhinacan y-da ama xada maxaa la dhihi jiray bahalkeena wuu siman yahay haddaa hamar aan fiirino faylkeenii oo faylkan haddaa imaano biyaha sidaan u daadanooyin soo marka saas sidee u samayn karnaa waxaan samayn karnaa inaan imaano dhinacan kore aan mid qaabanaynaa kadibna aan ku laaban hamar edge select waxaan taabanaynaa edge-kan kadibna x
mar sana ujeedaa haddaba mataqaanaa ku daashid inaad meelahan taabatid waxay imaan kartaa dhinacan kore edit object inay imaatid inputka mataqaanaa halkan hoose aad fura kartaa number pad hadday sidid keyboard weyn oo lambaraan kale extra yani dhinac midig ku saaran yihiin lambaraanta kor aan ahayn kuwaas isticmaali kartaa dhinac midig ku yeelan laakiin aniga maysi laptop aan isticmaalayaa lambaraanta waxaan haystaa bis ugu koreeyo soo kuwaas aan rabaa inaan u isticmaalo inaan jooyin ka fiiriyo haddaan hamar iska xirno aan taabano lambar 1 wuxuuna keenaa dhinaca yaada xna wuxuuna keenaa dhinacan kale 7na wuxuuna keenaa kor waxa ugu muhiimsan 1 3 7 intaas bas ugu muhiimsan soo waxa ka fiirinayaa 3 aan leeyahay hal mar haddii u baahan tahay inay haysatid ejiyaal kale oo sidan oo kale u baahan tahay inaad weli sii hagaajisid waxaad inta meeshan imaan lahayd meel dhinacan click sii lahayd ka bixi lahayd haddana saan dhigi lahayd waxaa ka fudud inaad taabatid ande control ra kadibna click aan siina soo saan aan dhahaa alt click aan siina jiida alt click wax yar aan soo dhigaa control r inta aan rabaa hal xabo wax yar kor control r sana waa hagaajina hal mar oo nagu soo laabana markaan dhameeyo hadda saan ku qanacsanahay hamar aan imaan object mode aan ka baxna meeshan waxaan taaban karnaa control space ama dhinacan ku taaban kartaa bis si aan u jarno bahalkan haddaan kor u qaadno wax isbedel male waxaan imaan karnaa inaan taabano dhulkan u baahanahay in la jaro inaan taabano aan imaanaynaa halkan modifierka kadibna waxaan siinaynaa boolean marka wuxuu rabaa booleankin inuu ogaado kuwa ka jarayo marka waxaan dhahaynaa kan ka jar wuu jaray halkan laakiin ma arki karno sababtoo ay bahalkan naga qarinayo marka bahalkan haddii aan iska qarin waan arkaynaa laakiin haddaan rabno kan inaan u sameyno aan dhahno boolean aan dhahno objectiga ma taaban karno halkan waan ka taaban karnaa laakiin waxaan rabnaa in laftigiisa aragnaa rabnaa moogtahay objectiga hamarna aan taabano waxaan aadaynaa object property kadibna viewport displacement in halkan hoos usoo deginaan dhahaynaa meesha ku qoran tahay textureka wireframe kadibna wuxuu ka dhigaa wire oo ka dhigaa soo kan ugu dambeeyo kanaan taabanaynaa dhulka ugu hooseeyo kadibna modifier boolean kana waa kan soo haddaan hamarkan halkan kore taabto sidaan noogu ekaana wuxuu egaa weli inay weli meesha tahay smooth haddaan hamar u laabana keeno horena maaha smooth dhinacan ma aragtaa sidaan oo kale ka dhigana hal mar waxaa taabanaynaa t iyo n saan labadigiis u kala xirno wireframe kana noo taabo objectiga kan waxaa bixinaynaaba magacaana ka bedelaynaa wire saan iskaga bixinaynaa wirekiina taabanaynaa kadibna waxaa aadi doonaa modifier waxaan siinaynaa displacement kadibna waxaan siinaynaa new kadibna dhinacan kor imaanaynaa haddii wax dhan weysid ogaaw bahalkan si khaldan u yaalo si aan u hagaajinana waxaan taaban karnaa control a kadibna apply scale soo markaad scalekiisa scale caadi oo normal waayo marka imaano bahalkan haddaan taaban mar labaad waxaa joognaa texturekan joognaa haddii aan meeshaan joogin waxaa aadaa modifierka dhibaxaas yar taabo intuu ku keena automatic ahaan kadibna waxaa meeshaan imagekan taabanayna waxaan ka dhigaynaa cloud so wax aa dhacoy laakiin wax dhan nooma muuqdo maadaama bahalkeena ma leh detail badan ma leh haddaan lamar iska qarina kan aan lamarka bis bedelano wax badan isan bedelooyin aan hamar hagaajino kan aan taabanaynaa wirekeena kadib waxaa aadaynaa edit mode aan dhahaynaa saa kulli wada taabano kadibna right click subdivide so subdivideka uma eg inuu si fiican oo caawi doono marka control r aan dhahaynaa kadibna meelahan anaka meelooyinka side ku kala fog hal xabaan gelinaynaa hadda meeshaan way kala fog yihiin meeshaan way isku dhow yihiin moogtahay meeshaan kala fog control r hal xabaan siinaynaa meeshaan sidaas oo kale meeshaan sidaas oo kale maraan khariyo kuwan aan ka fiiriyo lambar 3 aan taabanaysa geeskan ugu fiiriyo dhinacna waxay inay xogaa kala fog yihiin control r aan dhahaa kadibna aan kor aadaa click
control R click haddaan baran soo daysano saddexdiina dhul haddaa xasuusan tahay meesha saanay u tahay smooth moogtahay haddii aan hamar ka baxno wax dhan way isbedeleen maadaama hadda wuxuu haystaa detail badan u haystaa moogtahay haddaa yarsi shucaaca wuu badanaa haddaa weynaysna shucaaca wuu yaraanaa so haddaan ka dhigna camal 6 camal waa smooth weyn moogtahay marka waxaan ku dhahaynaa anaka waxaan ku dhaafanaynaa lambar 2 ay wegtahay caadi haddaas dhowsid webigu wuu yaryahay hal mar dhinacana imaanaynaa waxaan inaa intii maarna taabo karnaa s kadibna x maadaama dhinac x aan weyneyno moogtahay waan weyney karnaa bis hadda waan dhameynay webigeena wax kasto biyaha aan sameyno so marka biyaha inta aan mid kale aan ka lahayn object kale cube kale aan meesha la ekeysiin lahayn skilled galay hamar waxaan sameyn karnaa kan akubiyey karnaa kana biyo ugu dhigi karnaa marka waxaan sameyn karnaa wirekiina aan dhahaynaa shift d mid cusub una siinaa wirekan magaca ka bedelina waxaan u bixinaynaa biyo kadibna wirekiina hamar aan akhrino si aan si khaldan u taabanin marka waxaan imaanaynaa object kadibna meesha haddii aan wire ka dhigno waxaan ka dhigaynaa texture aan ka dhiganaa si caadi aan ugu aragno marka inaan dhinacaan ka fiirino bidix aan intaan ka jaraynaa biyaha maadaama intaan iswaysaydii u badan tahay waxaan rabnaa inay biyaha u ekadaan inay daadan weyn so marka waxaa aadaynaa edit mode kadibna intaan aan taabanaynaa hal marsaan haddaa saa u taabati ogaa dhinacan kale lama taabanayo waa inaad ku laabataa hal mar dhinaca x aan x-ray daarnaa ama wire frame labadaas mid kadib haddaan taaban karnaa kadibna x delete dhinacan kalena sidaas oo kale x delete marka haddaan ka baxno x haddaan hadda ka baxno object haddaan aadno aan ka baxno x-raygiina biyaheena saaidi u badiyin waxaan rabnaa inaan biyaha hoos u dhigno sidaan oo kale rabnaa biyaha hoos inaan ugu dhigno hamar facekaan aan taabanaynaa kadibna waxaan taaban karnaa c kadibna hamar aan taabana faceska aan baahanaan oo dhan haddaa isticmaalaysid mouse aa isticmaashid kan mataqaan dhexe oo markaa ku jirto website-ka oo u bixi kartid hoos ama kor kan dhexe marka haddaa isticmaashid wuxuu kaaga dhigaa brushku ka dhigaa weyn ama yariis so marka brushka iska yareey markaad taabanaysid meelo yaryar kadib hadda right click aan taabtay right click aan siiyey kadibna waxaan imaanaynaa meeshaan kore ay ku qoran tahay proportion meeshay ku qoran tahay proportion edit kaan taabanaynaa kan wuxuu naga caawinaa markaan kan aan mid leexino inuu kulligood leexino inuu kulligood hamar wada leexiyo so waxaan ka fiirinaynaa dhinaca x ama lambar 3 kadib aan dhahaynaa g aan taabanaa kadibna z kadibna hoos aan u dhigaa wax yar aan ka fiiriya x-ray hal mar intaan sameyn biyaha ilaa halkan aan la simay dhinacan saaidii hoos ugu daadan weyn so inaan hamar c taabto aan taabanaa kan dhexe aan qabanaa kadibna deselect marka sameynaya kuwaan u baahnayna marka ma taabanayo aan dheh haddana sidaas la eg markaa intaa soo gaarsiiyey intaan waan ku qanacsanahay kadibna koran wax yar uu ku qaadaa haddana intaan aan ku qanacsanahay intaan aan kor u qaadaa sana tartiibtan aan ku wadi karnaa marka haddii aan kusoo laabano meeshani caadiga aan ka baxno object edit mode-ka biyaha intaan hore hamar aan hagaajino inaad mid taabatid aad dhigi kartaa alt click wuxuuna taabanaa loopkan dhan hal mar alt click waxaad taaban kartaa f aad taaban kartaa faceka wuu xiraa laakiin markaan ka baxno yani uma ekinaya meeshaan biyo tahay ma fahantay eeto sidaan oo kale maaha male age male ma fahantay waa face weyn marka aan ka baxna hamar control z aan dhahaynaa aan iska xirno kuwan kale waxaan taabanaynaa control f kadibna grid fill hadda waa kana wuxuu noo sameeyey jijiyaashana asagaa noo sameeyey so haddaan ka baxno detail yaruu leeyahay mogna arkusiin laakiin wuxuu leeyahay detail uu leeyahay marka hadda waan dhameynay to wax kastoo aan dhameynay laakiin si mataqaana uu blenderkeena uu noqdo si dhaqso badan mataqaana kan booleanka waxaa fiican markaan ku dhameeyno inaan dhahno apply saasaa fiican marka waxaan dhahaynaa apply aan dhahaynaa hamar inaan inta imaano aan dhahaynaa waxaan taabanaa meeshaas yar kadibna apply haddana dhulka labaad intaan imaana
apply ama inaad taabatid mid modifier leh ay kor aadi waxaad taaban kartaa inaa control ayaa taaban kartaa adigoo kor saaran meeshaas inta calaamada siriska raadii lahayd soo marka hadda wirekeena faa'iido nooma leh waa iska dhirgiray karnaa haddaa u baahan tahay inaad dhulkaaga inaa wax yar sii hagaajisid inaad biyaha taabatid aad wax yar hoos u dhigi kartaa shift click ka u baahan tahay kadibna hoos aad ugu dhigi kartaa haddaa u baahan tahay waxaad samayn kartaa inaad mid hal meesha imaatay vortex-ga hal xaba taaban kartaa kana furo proportion kee dhahan kadib ka fiiri dhinaca x camal kadibna g markaas haddaa qabatid g hoos u riixida sidaan oo kale kulli way soo wada raacayaan sida biyo daadanayo oo kale soo markaan siina material hammer kuwan haddaan aada dhinacaas kule ku qoran tahay shayrarka kan hammer magacyadaas kaga bixin hal mar saasaa fudud moogtahay kan koowaad waxaan bixinaynaa lambar 1 dhulka labaad lambar 2 dhulka saddexaad lambar 3 soo dhulka koowaadaan taabanaynaa waxaan siinaynaa materialkiis waxaan bixinaynaa lambar 1 iyadana kadibna wax badan ma sameynayn runtii kalar cagaar bisaan siinaynaa kalar cagaar oo dhul oo sida dhul shabahayo dhulka labaad material labaad aan u sameynaynaa oo la dhaho lambar 2 iyadana wax yar aan ka dhigaynaa yaro madow kan ugu hooseeyana material kale oo lambar 3 la dhaho kalar asigana madow laakiin xoogaa ka iftiin badan kan kale si aad u tolo markaad sawirka qaadi siduu yacni u ahaado oo loo kala fahmi karo inuu yacni dhulal oo badan yihiin hamar waxa ilaa jirto maadaama dhulka kor ka fiirino waa square caadi ah ma leh detail ma leh haddaa fiiri sidoo kale sawirkan oo kale haddaan sameeyey wax yar wuxuu leeyahay edgekan uu leeyahay moogtahay iyo dhinacahan kale inkastuu korkan ka yahay flat laakiin geesaha waxoogaa waxay leeyihin information ay leeyihiin marka sidaas u samayn karnaa saddexdan xabo inaan saan wada dhahno saddexdooda wada taabano mataqaanaa aan aadi karnaa edit mode-ka kadibna control r inaan dhahno aan mid kasta sii karnaa mid u gooni kadibna saddexdoodaan wada qaadi karnaa inaan taabano c aan kulligooda haddaa imaana wire frame-ka aan saddexdooda wada taaban karnaa kadib aan wax yar saan u leexinayna haddaan kuwo kale u baahanahayna control r kadibna select kadibna hore waxay usoo bixi kan kalena control r saasaan ku wadeena hamar geesahan kalaan sameynaa kadib aan ugu soo laabana laakiin hadda xoogaa dhulkeena wuxuu leeyahay information soo marka hamar aan sameyna materialka ugu dambeeyey oo ah biyaha waxaan dhehnaa material aan sana siinaynaa waxaan bixinaynaa biyo waxa kila sameynayna waxay tahay waxaan siinaynaa color buluuga haddaa fiirisid mataqaanaa filmaanta kartoonka ciyaalka biyaha ma aha color biyo waa color yacni xoogaa purple camal oo buluug side racine waa moogtahay soo markaa ka cabsanin inaad ka dhigtid buluug sidaan oo kale intaa ka dhigi lahayd buluug yacni oo aad dhigaysid oo colorkana biyo eg xoogaa ka dhig color oo side si loo dareemo yacni inuu biyo yahay halka waxaa u baahannahanay oo laasimka haddaa ilaawinaa ka dhigna waxay ahayd inaan imaano dhinacan kore oo loo render property aan hoos imaan karnaa waxaan taabanaynaa color management kadib meesha ku qoran tahay filmic waxaan ka dhiganaa standard filming mataqaana waxaa lagu talagalay waxaalooyinka realistic oo kale daa sameynay sidoo kale filmaani waxaas laakiin cartoon iyo waxaas standardka ugu fiican dhinacana ku qoran tahay logne haddaa ka dhigatid none waa iska caadi ama waxaa ka dhigi kartaa high resolution ama low resolution ama medium non iyo medium waa isku mid colorkeena biyahana waxaa u baahanaan biyaha moogtahay waa reflection yacni biyaha wuxuu leeyahay reflection uu leeyahay soo marka inaan dhinacan hoos imaano aan meesha ku qoran tahay roughness waxaan ka dhigaynaa eber kana biyaha si fiican laakiin haddaan kusoo laabanay meeshii hore aan space ka riixno wax dhacoyo male biyaha yacni waa biyo iska istaagsan oo wax dhacaynin soo marka biyahan si u samayn karnaa animation usii karnaa soo marka biyahan inaan biyaha taabano aan bahashan keensana meeshan geeskaasaan dhigana si yacni haddaan wax keenno meeshaas u kor imaado waxaan raadinaynaa empty kadibna empty aan qaadanaynaa soo emptygaan koraan u qaadna wax yar hal mar way yartahay saa'id maadaama wax dhan waa 20 mitir la soco soo biyihiina taabanaynaa
meeshan waxay maalinaa ku qoran tahay modifierka kadibna meeshan ay ku qoran tahay locationka waxaan ka dhigaynaa object objectgaasna waxau noqon doonaa empty emptyga markasta aan leexino biyaha uu nuxsanaa yani uu isla leexinaya biyaha marka ogaa kartid ama waxaan rabaa inuu baalkayga filimkayga noqdo 30 frame 30 ku dhufaan dhehe 10 waxaan 30 ku dhufo 10 maadaama 10 second rabaa inuu filimkayga socdo kadibna dhinacan oo y-gan bedeluna mogtahay y-gan kor imaanaynaa ilaaban inaa meeshaan taabatay uu framekaaga lambar hal ku yahay meeshaan kadibna y waxaan siinaynaa click kadibna dhammaadkan aadaynaa kadibna wax yar aan u sikinaynaa dhinaca minuskaan u sikinaynaa kadibna clickaan siinaynaa haddaan hal mar taabno haddaan ahna play si tartiib buu socdaa aan badina hal mar waxaadaan dhinaca ugu dambeeyo kanaas ka xiraynaa kadibna ilaa inta camal aan keenaynaa sidee daa u dhamaa laakiin saaid uma dhamo weli waan sii hagaajin karnaa weli waxaan usii bixi karnaa dhinacaas -17 kan aadi karnaa hal mar dhaho play mar labaad haddaa u fiirsatid hal mar wuxuu ka bilaabanaa tartiib tartiib haddana wuxuu ugu cararaa soo kaas waxa keenaya waxay tahay garaafka haddana aadna hal mar garaafka wuxuu isticmaalayaa wax la dhaho bezier soo hal mar aan aadi graaf edit-ka maaragtaa tartiib uu ka bilaabanaa tartiib kadib wuxuu u soconaa kadibna tartiib u baxaa anaka maran waxaan rabnaa inuu noqdo truce yani inuunan is istaagin marka amar a aan dhihi karta haddaa meel khaldan taabatay a kadibna taabo t kadibna linear taabo caadi hadda wuxuu ka dhigaa calaamad wuxuu ka dhigaa yani socoto oo aanan istaag lahayn soo aan ku laabana hal mar waqtigiini timelinekiina kadibna kuwaan kusoo bilaabeynaa haddaan u fiirsano hadda wuxuu ku socdaa xawaarihiisa caadiga ku socdaa wax isbedelooy male so nice hadda waan dhameyna kan haddaan ka fiirino meeshaan haddii aa u baahantay inaan dhulkaaga mataqaanaa uunan falaad sidaan u ahayn u baahantay inuu wax yar buundo iyo wax lahaado sida kan aniga sameeyo kale waxaan sameyn karnaa inaad 2 vertex taabatid sidaan taabanay j 2 kaloo halkan j haddana kuwa random iska taabanay j hal mar dhowr xabaan taabtay hadda marka hadda midaan qabanaynaa kadibna anoo daynaya proportionalka wax yar kor u jiidaa mar soo hadda geeska ka fiirino wax yar dalcada loo maleeyaa haddaa u baahan tahay keligaa samaysan kartaa wax weyn kasta leh laakiin ma rabin oo videogan saan ka dheeraado ama dadka inaan ku adkeeyo marka maanta intaan ku joojinaya biritoon insha allah aan samayn doonaa geedaha biritoon aan isku arki doonaa marka ilaa isku arki doona videoga dambe insha allah waxaan leeyahay maca salaama